doorashada Soomaaliya ayaa maraysa marxalad xasaasi ah. 101 xildhibaan oo la doortay ayaa ka dhigan in weli hawl badanimo tahay. 20 maalin ee ka harsan waqtiga doorashada aqalka hoose loogu talagalay ayaa ka dhigan in lagu doorto ilaa iyo 174 mudane. Koonfur Galbeed waxay ku dhawaaqday waqtiga ay qabanayso doorashada 13 kursi oo ka dhacaysa Baraawe. ciidamo isugu jira boolis iyo military ayaa la geeyay magaalada si ay ammaan ku sugaan. laakiin waa la sii og yahay in xubnaha ku soo baxaya kuraastaas uu codadkooda tirsanayo madaxweyne Farmaajo. hase ahaatee falaqaynteena maanta ma aha waxa ka socda Koonfur Galbeed, laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa war uusan jeclayn ka helay Hirshabeelle, iyadoo filadu ka walwalsan tahay in madaxweyne Cali Guudlaawe uu ka baxay qorshihii xilka loogu dhiibay. sidaan idigu soo gudbinay wararkeena hore, magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa dhawaan safar ku tagay wafdi uu hogaaminayo wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere, kuwaas oo la kulmay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkaas. xubnaha uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Dheere ayaa wakiil ka ahaa taliyihii hore ee NISA ahna la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin, waxayna madaxweynaha Hirshabeelle u gacan geliyeen qorshe filada ka socda oo ku wajahan doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne. sida ay cadeynayaan xogo madax bannaan oo ah inuu helnay wasiir Cabdiraxmaan Dheere oo ah gacanta midig ee Fahad Yaasiin ayaa waxaa socdaalkiisa ku weelinayay sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyay Anas, kaas oo ah xoghaynta qaaska ee Fahad Yaasiin. ila ku dhow xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xaqiijinaya in laba qodob ay ugu waaweynayeen waxaabihii la hordhigay madaxweynaha. labada qodob ayaa kala ahaa in filadu ay codsatay liiska dad ku dhow madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin in la soo saaro sida ugu dhaqsiyaha badan, iyo in loo soo hormariyo doorashada Beledweyne, si gaar ah doorashada kursiga uu ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabduqaadir, maadaama kursigaas uu rabo inuu ku fadhiiso Fahad Yaasiin. Fahad ayaa wararku ay sheegayaan in sababta ugu weyn ee uu rabo inuu kursigan ugu fadhiisto ay tahay inuu u tartamo jagada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. wararka laga helayo ilo xilkasa waxay sheegayaan in madaxweynaha Hirshabeelle uu ku gacan sayray dalabka ay u gudbiyeen wafdiga Cabdiraxmaan Dheere hogaaminayay, isla markaana uu sheegay in doorashada Beledweyne aan xilligan laga hadli karin inta laga soo dhameynayo doorashada Jowhar. Hirshabeelle waxaa ka soo jeeda musharaxiin badan oo u taagan filla Soomaaliya, iyaga ayaana ilaa haatan hogaaminaya liiska xildhibaanada la doortay, waxaana u muuqataa in weli ay soo bixi karaan mucaarad ka codeynaya madaxweyne Farmaajo. doorashada Soomaaliya waxay gaartay heer la xiro musharaxiin, waxaana ugu dambeeyay wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, kaas oo saacado u xirnaa ciidamada amniga Koonfur Galbeed inkastoo dib laga sii daayay. siyaasigan oo ay qaraabo dhow yihiin wadaadka dowladda u xiran ee Roobo ayay ciidamada kala baxeen gurigiisa kadib markii uu Baydhabo gaaray saacadihii la soo dhaafay. waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u haqaltaagaya kursiga tirsigiisu yahay Hob 197, laakiin talabada madaxweynaha Koonfur Galbeed uu qaaday ayaa ka dhigan in siyaasigan uusan u tartami karin kursigan, maadaama uu ka soo horjeedo qorshaha maamulka Koonfur Galbeed ee uu dejiyay madaxweyne Cabdicasiis Laftagare. doorasho aan lagu tartamin, kuraas shakhsi gaar ah loo xiray, iyo masuq hareeye qaabka wax u socdaan iyo dhacdooyin kale oo la yaab leh ayaa laga dhaxlay doorashada. waxaase la isweydiinayaa sida ay suuragal u noqon karto in muddadii loogu talagalay oo 20 cisho ma tahay lagu soo gabagabeeyo.